gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xandow iyo gudoomiyaha degmada Jowhar Ismaan Maxamed Mukhtaar Ismaan Baari ayaa kormeer indheena ku tagay halka uu ka maro webiga Shabeelle tuulada Moyko oo ku taala duleedka magaalada Jowhar ee caasimadda dowladda Hirshabeelle. gudoomiyaha iyo xubnaha maamulka ee heer gobol iyo heer degmo ee socdaalka ku weheliyay ayaa kormeeray goobaha uu ka jilicsan yahay webiga Shabeelle ee laga baqdin qabo inuu ka sameeyo fatahaad marka uu webiga biyo keeno ama xilli roobaadka guga marka uu curto. gudoomiye ku-xigeenka tuulada Moyko Jaamac ayaa mid u dulgeeyay mas'uuliyiinta goobaha webiga ee dadka tuulada ay walaaca ka qabaan inuu fatahaad ka sameyn karo. isagoo warbaahinta la hadlayna waxa uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim waa tuulada Moyko oo soo booqdeen gobol iyo degmo dhibaatada ka jirto awgeed maanta ay meeshaan ugu soo fadahaaday qaabkaas inay wax ka qabtaan hadii ay maamulkii gobolka Shabeellaha Dhexe ama Hirshabeelle qaabkaas inay wax ka qabtaan ay u yimaadeen marka maamulka Hirshabeelle ama gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan tusaynay hadii nahay odayaasha tuulada Moyko meelihiis webiga ka jilicsan yahay ayaan maanta aan tusnay. gudoomiyaha degmada Jowhar Ismaan Maxamed Mukhtaar Ismaan Baari ayaa sheegay in cabsida ugu weyn goobaha ay ka qabaan sida Moyko, Baari iyo Banaanay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ay soo tusiyeen, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in lagu baraarugo wax ka qabashada goobaha uu fatahaadda ka sameyn karo webiga Shabeelle. bismillaahir rahmaanir rahiim runaantii mudane gudoomiye iyo mudanayaal sida uu sheegay gudoomiyaha tuulada Moyko wuxuu maanta kormeerkeena ku saabsan yahay meelaha ugu jilicsan anaga nafskeena marqaati kacnayno on kaceeno fasal horena na dhibaataysi ama dadkan dhibaataysi sida ogsoon tahay shalay waxaan tagnay Baari maanta waxaan joognaa Moyko. waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda inaan kormeer ku tagno tuulooyinka kale ee ugu dhow taasoo khatarteeda ay leedahay wadooyinka ay goyso oo beerihii ay ka goyso dadkii ay ku barakacaan. sida daraadeeda waxaan rabnaa hadduu al yiraahdo wixii wax qabad heer gobol iyo heer degmo iyo heer state iyo heer caalami ba inaan u raadino meelahan sida aan iskaga hortagi lahayn بعدما هذا الجو وقت جيلالك وهذا نقصوها بينها وقت حلقي جوجا وحوا لباتي صوتا هذا خيراتك إلهي نسي بيهو خيب كتاي إن حكمينه أن كشقينه سيدي أي محن كرايته أن واستعمال لهن سيدنا وتقولي واستعمال لهن أن ساسا سكبورينينا أما سكودر دارينينا waxaan leenahay mudane gudoomiye wax qabadkeena iyo kormeerkeena waxa waaye intii aad maqneed boqdaan waxaan xirnay haweenimo iyadoo tahay haddana hadii sidaan lagu dhaafane waxaan u maleynayaa in ay khatar weyn ay dhali doonto. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan oo madashaasi ka hadlay ayaa sheegay in muhiim ay tahay in wax laga qabto fatahaadda webiga Shabeelle oo saameyn baan u geysta dadka, dalagga iyo deegaankaba. waxaana baaq aan kala sooc lahayn uu u diray bulshada qaybaheeda kala duwan dowladda Hirshabeelle iyo hay'adaha ka howlgala gobolka Shabeellaha Dhexe. xilligii maarta deyrta oo tuulada Baari maantana waxaa joognaa tuulada Moyko. run ahaantii dhibaato aad iyo aad u weyn ayaa ka muuqato webiga qaybihiisa maartay ku aadan meelaha aan tagnay ayadoo meelo badan ay jiraan dabcan laakiin hadda meelaha aan tagnay dhibaatooyin badan ayaa ka jiro. in Allah intaan gaari karno inaan soo kormeerno kadibna sidii wax looga qabo lahay aan ku dhaqaaqnay ayaan rajaynaa haduu ilaahay anagoo kaashayno maamulka Hirshabeelle iyo heer gobol iyo heer degmo anagoo iskaashanaya bulshada dadweynaheena oo degan maaragtay tuulooyinkaba inaan iskaashano iskuna tashano si webigan maaragtay fatahaadiisa dhibaatooyinka badan ay u geysayaan mujtamaca ku nool magaaladan Jowhar in haday tahay wadada iyo haday tahay dalagga ay maaragtay ku noolaayeenba dhibaatooyin aad u baaxad badan ay maaragtay u geysteen fasalkii hore hadii fasalka dambe ay ku daraan sidaas iyo mid ka badan ay geysan karaan. marka waxaan rajaynaynaa inaan maaragtay arrimahan sida wax u qabo lahayn aan qorsheysano. marka kormeerkeenu wuxuu ku saabsan yahay inaan aragno bal inta dhibaatada ka taagan iyo waxa ay la eg tahay
tuulada Moyko hadda waxaa naloo sheegay cabirka inay 400 mitir ay tahay u baahan tahay inay dhabarka dambe laga dhigo maartay webiga goonkiisa oo darbigiisa uu yar yahay dhabarka dambe in laga dhigo ilaa maartay in cabir la eg maartay 5 mitir carro in la saaro in markii intaas la fiiriyo waa arin aad iyo aad culus laakiin waxaan rajaynaynaa inaan isku tashano ganacsatadeena maamulkeena maartay ama isteedka ama gobolka ama degmada inaan iskaashan haduu ilaahay yiraahdo cid allaale cid gacan naga sii kartana haduu ilaahay yiraahdo waa soo dhaweeyna Cabdiraxmaan Cali Diiriye Cabdiraxmaan Midaye Hirshabelle TV magaalada Jowhar